بسم الله الرحمن الرحيم نبض وضيال دلهانتين بكسر دوادا برنامج كدتك يدولدو ذا برنامج هو حاضر كل مرتي وآه قدوميها حسب معارض كهيا وضني لأنتي تدلك فرانسيسكا عبد الرزاق محمد عبد الله bal inta aanan barnaamijku gudagelin waxaan jecelahay inuu cabdirisaaq faahfaahin ka bixiyo bal xilka uu hayo isla markaana in yaroo ku saabsan noloshiisa tiisii hore iyo tan dambeeya iminka si ay idin garataan waa kuma cabdirisaaq kumuu ahaa muxuu soo qabtay si imika muxuu hayaa cabdirisaaq soo dhawo barnaamijka ودوي جمال بسم الله الرحمن الرحيم أنا واحد عبد الساعة جبران محمد كنتي أرضيتي وحكي مرتين ضلك نبقى سواء مركي دمنا معلم كان مقضي مقالة القرار إنه كان هالكن فرانسيسكا إنه كان إنه دار شوي السياسة دعوين وطوحة محا حبي كم يدام حان كل هذا نهي لما يردها كم يدام شيء حسبي لورد شيء وضع ومضى حسبي لورد شيء وحان كل هذا كاها قرب كده اللي يرد قبل كتير حبني اللي يرد فلين تان كم ده مركي أنا كان منا وحانو كم من حسب كان وطني لا تيسي فرانسيس أنا هالكم كوا أساسني قدومينا اللي قدرتي كل سبكي جنري لو يكون شنيتون. داود waxaan filayaa inay wax ku ogaateen cabdirisaaq iyo qofka uu yahay cabdirisaaq barnaamijkan uu ka faa'iideysanaya waxaan jecelahay inaan ka wareysto khusuusan bal xisbiga uu gudoomiyaha u yahay oo dalkan u qaabilsan yahay mabaadi'diisa siyaasiga ah ee isla xisbigaas iyo waxyaabaha xaaliyan ka taagan dalka Soomaaliland siyaasadda iyo arrimaha bulshada inta aan su'aalaha kala qabqada cabdirisaaq waxaa dhawaan dalka ka dhacday in asxaabta mucaaradka ah iyo xukuumaddu ay isku celcelinayeen hadallo saxaafadda la soo marinayay kuwaasoo khuseeyey dhanka doorashooyinka oo xilligoodii ku dhici waayay bal arrinkaas iyo sidaa u aragto ayaan jecelahay inaad ummadda ku daawanaysaa uga warbixiso si ay markaan su-aal kaga weydiino runtii dee dhowr jeer hore laga hadlayo asxaabta mucaaradka iyo maxaan ku dhahdaa dhammaan ciddii bulshada reer Somaliland iyo intii ay khuseysay way ka hadleen doorashooyinka iyo maxaan ku dhahdaa duruufaha ay soo mareen iyo xaalka uu maxaan ku dhahdaa maanta dalku marayo wayna ognahay maanta dalkii waxaa ugu dambeeyey xagga sharciyadda xukuumaddan maanta maxaan ku dhahdaa madaxweynuhu uu hogaaminayay oo lagu doortay maxaan ku dhahdaa la doortay muddo 5 sanadooda loona doortay inay doorashada qabtaan muddada 5 sanadooda nasiib darro samay dhicin arrinta doorashada waa caqabad taagan oo dalka ka taagan muhiimaduna waxay ahayd inay doorasho inoo qabsanto siduu madaxweynuhu hore u sheegay waxa uu qabsoon weyday ilaa imika dee waa yooyootan runtii waxa ay xukuumaddu ay kaga jawaabaysaa iyo waxba lagumay baaqanin waana howlgudasho la-aan xukuumadda runtii ka taagan madaxweynahana hadalladiisii in badan baa mucaaradku uu lahaa way beeninayaan maxaan ku dhahdaayay ciddan uu igmaday inay la shaqayso hadalladii uu yidhi runtiina way muuqataa inay madaxweynaha hadalladiisii beeniyeen dhaxalkii uu doonayay madaxweynuhu inuu ka tago iyo legasigii laga dhexli lahaa ee dimuqraadiyadda ahaa ee maxaan ku dhahdaa kala dambeynta ahaa ee sharci dhowrista ahaa ee uu magacayo maamuuska ku yeelan lahaa madaxweynuhu runtii waxaan aaminsanahay dad aan u ogolayn oo maxaan ku dhahdaay xukuumadda ka mid ah inay jiraan waana ta sababtay maanta in wax waliba ay muddo dhaaf ay ku sugan yihiin xilligan hase yeeshee wixii maxaan ku dhahdaay runtii laga filayay madaxweynuhu iyo wixii uu ballan qaadayba may dhaboobin walow aan jeclaan lahaa madaxweynuhu intii karaankiisa uu qabtay maxaan ku dhahdaa maanta nasashu u baahan yahay inuu iska nasto oo nin taariikh badan kule buu ahaa maxaan ku dhahay dalka iyo dadka laakiinse haddii ay jirtaba maanta in madaxweynuhu uu tahli karayo inuu isa soo sharaxo oo uu tartamo oo uu maxaan ku dhahdaa ummadda wixii magaranaysaa ballanqaadadiisii ahaa
wixii uu ka fuliyey wixii aanu ka fulinin lagala xisaabtamo dee waa jeclaan lahay inuu yimaado maxaan ku dhahdaay nidaam oo uu su-aalaha wixii laga weydiinayo wax ka weydiiya laakiin se inuu iska soo duubo kolba cajilad madaxweynuhu oo uu maxaan ku dhahdaay wixii uu qabtay uu ka jawaabo dee dhinacii kala taalo oo wixii aanad qaban baa lagala xisaabtamaya madaxweyne yaa ma tahay ayaa su-aasha anagu haddii aan nahay saxafiyiinta ama sawiriyaasha mar walba waxa aanu u joognaa naga go-an oo aanu jecelnahay in anagu keliya maaha dunidooda ay saxaafaddu qaraata hadisa marka isla taabaan ku raacayaa gudoomiyaha xisbiga aad xubinta ka tahay ee wadani waxa weeyaan madaxa sharciyada dalka haddii aan dhahay dadka wax kamidalkiisa waana dadka lasoo doortay inta sanadood baarlamaanka ku jira maanta meesha 6 sanadood baa doortay 5 sanadood baa la doortay maxaa kalifay inuu 5 sanadood sii joogo haddii aad weydiiso su-aasha in badan horaa laga hadlay saxaabada meelo wiilkan ku weydiiyey madaxweynaha kalifay baa taaganahay maxaan ku dhahay maxamed maxamuud silaani dee waxaan u baahannahay markaas su-aashan jawaabteedu balbalaaran maaha haddaad saxaafadda la socoto waad fahmi karaysa qofka wiilka cabsa aniga maaha adiga ma waa bulshada daawanaysa marka hadda adigoo cadaynaya sida uu siinaayay sababta ugu yahay inuu 5 sano oo dambe oo sharci darraa cirka sii fadhiyo welina uu sii fadhiyo oo intii gurtida ku kordhinayso ku dheegnaa ay sharci darra tahay saa ugu tilmaamaysay baralkaas u keenay waafaji aan sugaa waafajiyo ninka la yidhahdo jamal gudoomiyaha maxaan ku dhahdaay golaha baarlamaanka carabka ku adkeynaysa wuxuu ka mid ahaa xubnihii baarlamaanka la soo doortay waana speakerka sharciyan marka laga hadlayay maxaan ku dhahdaay sidii uu ku yimi gudoomiyuhu wuxuu ku yimi maxaan ku dhahdaay doorashadii uu ku yimi doorashada waxay kaga ekayd 2010 markii doorashadan maxaan ku dhahdaay la gelayay golahan maxaan ku dhahdaay madaxtooyada markii uu madaxweynuhu soo horeysiiyey xisbiga kulmiye wuxuu ahaa raggii ku doodayay in doorashada la qabto golaha maxaan ku dhahday doorashadu sidoo kale horeysay golaha deegaanka ahayd markii hore in la qabto baarlamaanka waxaa ku xigay baarlamaanka oo ku beegnaa maxaan ku dhahdaay bisha la yidhaahdo maxaan ku dhahday September 2010 waxay ahayd markaa in la galo doorashada September 2010 waxaa heshiis sidaad ula socotay inaad la socotay in kala mooyaane jira balaa berigaad ugu wadiyahay waxaa jirtay doorasho lagu heshiiyey labada xisbi maxaan ku dhahday mucaarad iyo xisbigii ugu dambeeyay markaa jiray waxay ku heshiiyeen markaa iyada oo uu weliba xisbiga kulmiye ka timid maxaan ku dhahdaay propositionka iyo soo jeedinta in doorashada madaxtooyada laga soo hormariyo maxaan ku dhahdaay tii deegaan aan dhegeystayo su-aashii marnaba ku jirtay markaa aan ku dhameeyo aan si kugu noqday tahay haye daawid ugu yartahay laakiin waxaan umeynayaa inaan wax badan farsamada soo dhanka kale waxaa anigu ku weydiiyey sidee u siyaanayo ama wase xukuumadda sabab ugu ahayd sidee bay sabab ugu ahayd in 5 sano oo sharci darraa uu cirka sii fadhiyo cid welina wax qortay mas-uuliyadda qaran haya sidii ay u soo bandhigeen ama wase ay door bideen oo uu ogolaaday yana sharciga ku tuman kuma tumanin sharciga waa heshiis sharciga waxaan maaha maxaan ku dhahdaay dastuurkan aad maanta maqashada leeyahay hala noqdo ma aha quraan yaa aayad quraan soo degtay waa heshiis wuxuu ka yimaadaa cidda ay khusayso haddaba garata madaxweynuhu maanta haddii maxaan ku dhahdaay aan wax ugu heshiinin dee maxaan ku dhahdaay madaxweyne muuse ahday maanta anigu siilaayo maanta madaxweyne anu ictiraafsana laakiinse waxaan ugu ictiraafsana marka uu ogolaado maxaan ku dhahdaay wixii lagu heshiiyey waa si fiican haddii se ay dhacdo maxaan ku dhahdaay inuu ka tago maxaan ku dhahdaay wixii sharciyadu ay ahayd dee cidda madaxweyne u noqon maayo marka muhiimaddu waxa weeyaan cidlo isagaa madaxweynuhu maanta u mas-uula cidlo madaxweynaha uma madaxweynaha laakiinse madaxweynuhu isagaa u madaxweynaha cidlo haddaba garata madaxweynuhuna 2,000 oo jeer wuxuu ku baaqay inuu yahay xubinta ugu dambaysa ee biyo kama dhimcaanka ee qarankan uu leeyahay waana xaqiiqa wana ictiraafsan waxaan jecelahay in ummadda u caddayno isla markaana ay noqoto tulis la fahmo xagga shuruucda iyo heshiisyada bulshada somaliland aad bay ugu wareertaa mar kasta oo barnaamijyo ama waraysiyo ama arrimaha la qabtana sibaad moodaa in dadka mas-uuliyiinta ay isugu taharaan meelo aan loo baahnayn cabdirsa waxaad ka dhawaajisay
inuu sharcigu yahay heshiis xukuumaddu waxay door biday oo ay dowlad siisay sidaad sheegaysay maamulkii markaa baarlamaanka in ay xel tahay inay sii joogaan doorashada dib loo yaro dhigo waana ogolaa haddii tamaanta aynu taaganahay may dooransin adaa inka qadariyadan may dooransina waa maxaan ku dhahdaa waa lagu khasbay in muddadu ay socoto marka sida ay ku timi haddii aad doonayso inaad fahanto labada jeerba madaxweynaha maanta inay bulshada fahanto bulshada adiga ka representative oo dee ka wakiilada maanta waxay ka weydiinaya laakiin bulshada daawan Laakiin inaad u cadayso hayna daawato oo bulshada intii maxaan ku dhahdaa xilligaa la socotay siyaasadda way fahmi kartaa baa filaya inta kalena waa adiga imika u sharaxay marka labada jeer ee maxaan ku dhahdaa uu kororsiimaha ku yimi guddoomiyaha baarlamaanka oo kamid a xubnaha baarlamaanka waa sidaas waana sharci waana sharci laakiin imikana sharci maaha labada sano sidee labada sano dib lagu kordhiyey imika baarlamaanka iyo xukuumadda sharci maaha Waxay- labada sano waa sharci waxay sharci ku yihiin aan si fiican kugu sheego sharcigu waa heshiis baan kugu oga waxay soo jeediyeen labada jeerba inay sidaas wax u dhacaan golihii maxaan ku dhahaa ciddii ay khuseysay doorashada oo ahayd commission oo kolba wixii ay qaban karayeen iyagu tilmaamayay haddii aan dibku ugu noqdo maxaan ku dhahdaay sidii ay doorashooyinku u soo dhacayeen dalka Soomaaliya runtii wax badan baa ka qabiya ah khaladaad badan oo soo dhacay baa jiray laakiin si maanta oo in ay ahayd wax laga barto kulmiya raggii ugu mucaaradada adkaabo markii maxaan ku dhahdaa markii la ahaa mucaarad dee 10 cisho iyo maxaan ku dhahdaa iyo 15 cisho oo kororsiimaan ayay ka qaynin jireen maanta intii aan doono ayaan kordhisanaya dhagahana waan furaysanaya wax allaaliyaala dhiirasho waxaan ku dhiiranayaa xitaa ma jirto ila bulshadu waa go-aan bay ka gaadhi kari lahaa waxa weeyaan dambeeriga jecel xagga jecel bay noqonaysaa marka waxa ay sharciyadu noqonaysaa wixii maanta lagu heshiiyo stakeholderska ay khusayso waxaan ay ku heshiiyaan in la sharciyeeyo si sharcigii dib lagu noqdo oo ay u noqoto marka Wax sharci. lagu heshiiyo si ay sharci u noqoto طبعا uma aragtid xal miyaa mise inay jumhuuriyadda Soomaaliland u wanaagsan tahay marka aad aragto marxaladaha lagu celceliyo waxaa leeyahay waan ka jeediitan haddaan nahay wadani may iman xaalad inta kordhin lagu sameeyo saas baa aaminsantahay saasaan aaminsanaha marka hore ma u jirin xaalado sabab yimid inta kordhinadii la sameeyey sideed calasha si ay dee u noqoto hadda tusaale ahaan axmed maxamed siinaay haddii aan inta taariikh ugu yar noqono waxa uu diidi jiray in muddo kordhin la sameeyo isagoo sheegi jiray inaan xal ahayn halka uu maanta leeyahay waa xal marka miynaan odhan karin idinkuna shalay waxaynu haydeen waa xal maantana waxaynu leeyihin waa xal miynaan odhan karin markaa dhammaantiin waxaynu ku wada tumataan sharciga anagu ayaa adeegtiin mas-uuliyiinta wadda doorata ismariyaano mas-uuliyaddu ma qaybsanto mas-uuliyadda waa shan leedahay ma qaybsanto okay haddii aad leedahay dad kale oo maxaan ku dhahay sharciyada dee sida daba fulinaya baa jira dee adiga garanaya halkay dee ka imanaya laakiin se anadii ku dhaqan wal haddii aan xasuusiyo xisbiga wadani maha shacab si waan golaha baarlamaankuna maha shacab haye labaduba waxa weeyaan xubno dastuuriya si waan awoodna way leeyihiin si waan adigu shalay waxaad ka mid ahay udub si waan waddanka iyadoo tilmaysay waxay dhaci jiray gabadfallo sharci haddii u doonayno ama aynu saxaafadii qowdada doonayno gabadfallo ay geli jiray baa jira waxaan malaynayaa kuwa dee gacanta kuma anfan maxaa kamid ah dee waxaa ka mid ahaa kororsimooyin baa dhici jiray waxaa ka mid ahaa ilaahyo badan dhici jireen taariikhdu way badan tahay marka waxaad halkaa isku yara waafajisaa waxaan malaynayaa layaab kugu yara noqotay annagu waxaan u doonaynaa keliya oo aan jecelnahay haddaan saxafiyiintan haysaan horaba kugu sheegay inay wax kastaa ma noqdaan clear islamarkaana aan xor ahaan marka waxaad bulshada isu waafajisaa si aan adiga ku dhado lagu arag ku marka uu xilka hayana u dooda sharci darrada markuu dowladda ka yimi mucaaradka joogana ku qayliya sharci darrada marka si aad ugu noqoto shimbir ama ku sharciga sidiisa u dhiga basukaa yara waafaji sharci darrooyinkaa dhici jiray sharci bay ahaayeen maantana wax kasta waa sharci darra waxaan se filayaa intii aan udub ka soo taagnaa inay udub tahay inay ahayd maxaan ku dhahdaay dee xisbigii suurtageliyey waxaanaynu maanta ku wada hadlayna ee aynu kaga raysanay beelihii iyo maxaan ku dhahdaay xaaladihii cakirnaa ee magaranaysa adkaa waana xisbigii keliya ahaa ee afar doorasho oo aanay ku daran qabtay laakiinse kulmiye waa xisbiga keliya ee maxaan ku dhahdaa doorashada keliya u qabtay dadka lagu laayay weeyaan marka taadu ku noqon maayo laakiinse imika waxaan ka hadlaya waxa weeyaan war sharciyadii sidee baynu ugu dhaqana
yaase sharciyada awoodda ugu sarreysa leh muhiimaddu waa intaa intaan ka hadlayaa waa intaa markaa haddii dee maxaan ku rahdaay aad adigu gaboodfallo dee ka dhan ahaa udub oo aad hayse ay jirto adigaa saxaafadda oo soo bandhigi doonaba ayaa aaminsan haddii udub baan jeclayda limidkaala weydiiyey imika udub ma jirto wadani baan hayo imika aan guddoomiye hogaamiyaha gudita cabdisa haddaan khaldanayn waa ka maanta si waa absolutely ka maanta waxaa ugu doortaa ama dadku kusii arkaan in hogaamiyaha guri noqonayo wixii shalay tola jiray shalay haddii aad milaadiyahaan udub la socotay udub ummaddu waxay aaminsan tahay inaanay dalka horumarin saas aaminsan tahay mud ummad marka waa tallaabada maxaa ummadda aragtaa maanta kulmiye waa kuma dhamaynin maanta kulmiye waxaa laamsan yahay in wadada meel arabkan ku dhameeyo maanta kulmiye waxaa laamsan yahay hadduu sidaa ku socdo uu ka litaa wadadii udub isna raacayo inta doonaa ka litaa oo kulmiye maxaan ku rahdaa mabda ahaanta isbedeshay mise udub iyo wadani ayaa isku mabaadi ah udub iyo wadani waa laba xisbi oo maxaan ku dhahay kala marxalad ah bay ahaa haddii aad la socotay haddii kale qofka maxaan ku dhahay markaa xisbiga udub ayaa ka tirsanaan jiray markii uu burburay waxaa soo baxay maxaan ku dhahay xisbiga lahada wadani waana anigu mabaadidiisa markii aan saddexda xisbiyeed maanta jirada aan eegay waa xisbi mucaarada ka duwan sifadii hore ee mucaaradku yeelan jiray ku jiqsi iyo maxaan ku rahdaay qaylada iyo waxyaabahaas oo dhan aan maanta maxaan ku rahdaay runtii laga aqoonin waxaa maamulo maanta xisbigan aan ka tirsanahay diblomaasi maxaan ku rahdaay afkiisa iyo adinkiisaba laga nabadgalay aan rajeynayno in laga nabadgeli doono insha allahu tacaala waxaan aaminsanahay xisbiga wadani waa ka keliya ee maanta bulshadan reer somaliland ee tafaraaruqsan midayn kara waxaan aaminsanahay inuu buuxin karo boos mucaarad kii ugu tudhaalaha iyo maxaan ku dhahdaayey dal jeclaysiga badnaa marka waxaan rajeynayaa waxa wadani qaban doono iyo isjiidkii waxaan u maleynayaa su-aalaha kusoo diyaarsaday qaar kamid inay tahay laakiin su-aashan guddiyaan ku hoosiyo xisbiyada caadi ahaan markaan dimuqraadiyadda samaysanay dalkeena asxaabta adduunka ee hore waxaa loogu horeysay cadisa waxay ku kala duwan yihiin mabaadi ay kala aaminsan yihiin mabda'a kasta waddankaas waa lagu horumarin karaa laakiin adduunka kala duwan yihiin sida waddanka joogno bidix fog midig dhow arrimo noocaas oo kale qaybsana waddani wuxuu udub waxaa xisbi karaa in badan waddanka soo hogaaminaya kolley mabaadi buu leedaa waddanina mabaadi buu leedaa waxaan weydiiyey ma labada xisbi baa isku soo mabaadi dhigo waayo labada kana ku jirtay kana kaasi waa ka margashay haddii aanad marka waxa labada xisbi baa isku mabaadi ahaa mise adiga mabaadi xagga bahweynimada haa isku mid weeyaan halkaa ummadda yara faahfaahay bahweyn xagga jira waxaan uga jeedaa ku dhamaanshaha ummadda reer somaliland min gobol ilaa gobol waa xisbiga keliya ee uradii ka soo baxay xisbiga la yidhahdo wadani gobol kastana wuxuu ahaa maxaan ku rahdaa kaalinta koowaad gelin kaalinta labaad ayuu kusoo baxaa wadani marka waxaan aaminsanahay inuu yahay xisbiga keliya ee bedeli karayay maxaan ku dhahdaa xisbigii burburay kelmada aad isticmaashay bahweynta waxaan maleynaya ku jirtay qeexidii magaca oo marka bahweyn waxaad u jeedaa waddani waa loo dhayay waxaa bulshada bulshada gobolada somaliland deegaanada dhan okay laakiin beryahan waxaa soo baxaysay in saxaafadda ay ku jireen xubno muhiima oo waddan iska casiliyey midaan markan waddankaas oo kala dhusnaa nusqan maaha waa kii guddoomiyuhu ka hadlay xisbiga wadani maaha dee siduu guddoomiyuhu sheegay jeel maaha dadka lagu xidho oo aan albaab keliya laga soo gala leh aan laga bixi karin waa xisbi dimuqraadi qofku haddii markaa wixii uu soo galay himilooyinkii uu soo galay isagu uu markaa ay la noqotay inaanu maxaan ku dhahdaay inaanu ku dhex arkin waa arrin gaara oo kale laakiinse waxaan rajeynayaa ilaa iyo imika xisaayaadka lahayo iyo telekoobyada lahayo wadani maxaan ku dhahay laba saddexdaa qofeed ee maanta iska casilay mooyaane in bulshada inta ugu badanna ay soo gashay inta ugu badanna ay kusoo socoto imika insha allahu tacaala waa sidaas xisbiga mucaaradka ah ee wadani maxay tahay mabaadidiisa siyaasiga ah ee haddii uu helo kalsoonida ummadda u jecelyahay uu rabo inuu ku hogaamiyo dalka wadan kow xisbigu horta dee wuxuu leeyahay maxaan ku dhahdaa buug aad ka akhrisan karayso internetyada iyo websiteyada haddaad u baato focal pointska iyo budligiisu waxa weeyaan kamira dhalinta himilada bulshada reer somaliland oo ah ictiraaf kow isku duubnaanta iyo maxaan ku dhahdaa midaynta bulshada reer somaliland laba cadaaladda iyo maxaan ku dhahdaa transparencyga saddex
maxaan ku dhahdaay in infrastructure-ka iyo maxaan ku dhahdaay baahiyaha guud ee bulshada baahiyaadka guud ee bulshada ee maxaan ku dhahdaay sida cadaaladda caafimaadka waxbarashada maxaan ku dhahdaay waxyaabahaas oo dhan inuu wax badan ka qabto oo uu horumariyo ayaan ku rajo weynaa insha allahu tacaala xisbiga wadani midkan waxyaabo aad ninka kow iyo laba ay odhan karto waqtigeenu iyo daraadii oo xukuumaddan maanta ay ka gaabisay oo aad filayso in wadani wax ka bedelo dabcan maxaa kamid ah cadaaladda ka mid wax kale ma jiraan iyaguna waxaa ka mid ah maxaan ku dhahaa horumarkii dee caafimaadka iyo maxaan ku dhahdaay waxbarashada maanta xisbiga kulmiya waxyaabihii uu ku ballan qaaday ee uu bulshada u ballan qaaday waxaa ka mid ahaa 300% inuu kordhin doono mushaharka maxaan ku dhahdaa shaqaalaha dowladda manu kordhin waa hadda taas miisaaniyadda dib ugu noqo dad maanta 100% uu kordhiyey ninkii la odhan jiray barnaamij caadiya sameynayna waxaan jeclahay wax kasta ahaadaan wax cad oo transparent oo wax cad weeyaan madaxweyne ninkii la odhan jiray wasiirkii la eriyay maxamed xaash 100% uu kordhiyey maxaan ku dhahaa shaqaalaha dowladda mooyaane wax dambe oo kororsiimaa ku jirta miisaaniyadda dalka ma jirto waa si fiican waxaad sheegtay waxyaabaha wadanigu wax ka qaban lahaa sida in wadanka lagu horumariyo dhanka cadaaladda caafimaadka iyo waxbarashada ma jiraan waxyaaba aad u aragto in wadan kulmiya uu wax fiican ka qabtay iyo xukuumaddiisa kulmiya dee guriyuus waana wax wanaagsan oo maxaan ku dhahaa bulshada ay u baahantay laakiin si wax kale oo looga baahi badnaa baa jirtay marka haddisa waxaan jeclahay inaynu dib ugu yaro noqono qeexidda kelmada mucaarad beryahan waxaad moodaa idan markii ama aan idhaahdayo ka jirta kuwii ka horreeyay mucaaradka ahaayeen inay u dagaalamayeen inay kursiga qabtaan isla markaana ay micnaha mucaaradnimo baamarayeen mucaaradku sida dee aniga kula hadlaya aaminsanahay ama dadka badankiisu ay aaminsan yihiin waxa weeyaan sixidda wixii khaldama isla markaana sheegidda wuxuu ku bedeli lahaa iyo sheegidda dee wixii saxan haddii marka aan maanta idhaahdo waxba ma jiraan wax walba way khaldan yihiin dee waxay noqonaysaa in aan yamxeelin samaynayo sida aad u sheegtay waxyaabo dhalila waxaad tiri wixii ay qabteen guryaha haysa taas maynaan odan karin xaqiiqada wadeera qarinaysaa ka wadanayaha dee soo bandhig adigu haddaad maxaan ku dhahaa tayda ka duwan aniga ku wareysanaya aniga haddaad i wareysanayso anigu wixii aan arkay waan kuu sheegay waxa muhiimaddu ay tahay xukuumadda loo doorta inay dhowrto maxaan ku dhahdaay kelmadda aan daba socdo kamid wadeera faafeentay weriyo waan ahay laakiin dee waan la socda hadda ka jira sidoo kale bulshada ku daawanaysa waxaan jecelahay wax macquula u sheegto waayo dee ma kaftamayno waxaan wadaa barnaamij life marka had leedahay guryo dhista dadka waxay isweydiinayaan igu jira guryo dhista xukuumadda imika hadda garomo diyaareed baa la dhisay aan kusoo noqdo garomo diyaareed baa la dhisay wasaaradihii baa lagu horumariyey dee maaha miisaan ku doodaya bal mid kale ayada qodob kale saddexaad ilaa waqti bayna maahan waxaan jeclaan lahaa inuu guryaha maswa arrimaha u hadlo haddaba laakiin de waxaan jeclaan lahaa si arrimaha sheegaysa hore ay u ahaadaan qaar micnale isla markaana dadku dib ay baaritaan u sameeyaan si waxaan loo soo xaqiijiyo inaad sheegto waxay jira laakiin haddaad tada guryaha lays minaan markan cabdisaaq macaadumadaada ila fogeyta lama odhan karo ma xukuumadda wixii ay ka filaynaytay iyo wixii ay noo ballan qaaday mise dee waxa maxaan ku dhahdaay ay dee xaqiiqatan ay dee qabatay xukuumaddu waxay noo ballan qaaday inay qaban doonto maxaan ku dhahdaay boqolkiiba 300 ay kordhin doonto mushaharka maxaan ku dhahdaay shaqaalaha dowladda may dhicin waxay noo ballan qaaday in tv-ga maxaan ku dhahdaay aad ka shaqayso adigu ee qaranka uu noqon doono tv madax bannaan oo u siman bulshada may noqonin waxay xukuumaddu inoo ballan qaaday inay maxaan ku dhahdaay wax ka qaban doonto caafimaadka weli maynaan maqleen cisbitaal ay dhistay xukuumadda iyo meel ay maxaan ku dhahay cisbitaal ka dhistay waxay inoo ballan qaaday in waxbarashada ay bilaash ka dhigi doonto maanta ayay ka qaadisan tahay shalay tole wixii maxaan ku dhahdaay laga qaadi jiray oo sicir barar bay kusoo kordhisay bulshada xukuumadda waxay inoo ballan qaaday inay wax ka qaban doonto sicir bararka cirka maxaan ku dhahdaay marayay xilligii udub uu sii saddex jibaan waxay inoo ballan qaaday xukuumaddu inay maxaan ku dhahdaay xisaab celin ay bulshada u samayn doonto meel ay maraysa ma jirto wasiiradii maxaan ku dhahdaay transparency-ka doonaya inay wax ku qabtaan waa tii habeenka maxaan ku dhahdaay dhibaatooyinka transparency habkooda waa caddaynta war maxaan ku dhahdaay juwanada iyo caddaynta iyo
qayb waliba miisaaniyadda dalka halkay ku baxday iyo xisaabtankeeda haddii aan kufahmin waxay jiraan musuqmaasuq baahsan baa jira musuqmaasuqaasma jiray berigooda wuu ka xag jiraa kan maanta maxaan ku dhahdaa kan imika intuu dooraba ka badan caadi ahaan haddii waddan musuqmaasuq ka dhaco dhaqaalihiisu hoos buu dhaca inay dhaqaalihi noo soo kicin xagee u ka kaca haddii aynu xasuusano ma miisaaniyadda u taqaanaa inuu dhaqaaluhu koray midna marka waxaan rabaa inaad ummadda u cadayso musuqmaasuqa sheegaysa musuqmaasuqa dee waa caddi markaan waxaa jira faktuuro ama cadaymo waxyaabaha maanta ma waayo marka leedahay musuqmaasuq baa jira waxay xadgudub ku tahay in xatooyin lagu sameeyey nimanka dowladda waxay xadgudub ku tahay aniga dhammaan kusoo somaliland markaa nama waxbaa la xaday waxaa looga baahan yahay wixii la xaday waa wixii maxaan ku dhahdaa musuqmaasuqa waa ummadduba waa ogtahay adduunweynaha maraba adduunweynaha dowladii lala yeeshay cabirsa adigoo soo qaadanaya halkaas dhaqaale kasoo baxay baa la lunsaday ama hilib baa dhaqaalaha qaatay si ay u noqoto wax cad oo la hubo oo lagula xisaabtamo okay waayo mas-uul xisbigu waa kuu sheegaya dhegeyso xisbi maxaan ku dhahdaa maanta xukuumaddan jirta meelaha ugu musuqmaasuqa badan ee musuqmaasuqa maxaan ku dhahdaa waxay waxaa ka mid ah garoonadan aad sheegaysa in la dhisay 15 milyan baa ayaa lagu bixiyey dhaqaale maxaan ku dhahdaa lagu bixiyey cid soo celisay iyo wax galay toona lama hayo waxaa la iibiyey wasaarad intaas soo guriyay oo maxaan ku dhahdaa xukuumaddu lahayd tusaale ahaan tan aviationka iyo maxaan ku dhahdaa wasaaradda dowlasta iyo hawada intaasoo milyan baa la siistay maxaan ku dhahdaa guriga waxaa laga sameeyey guri yar baa maxaan ku dhahdaa laga dhisay gebigeedba lacagta ku baxda waxaa lagu sheegaa 1 milyan inay tahay 300 milyanna waa la siiyey waxyaabahaasoo dhan waxay sheegayaan transparency la-aan iyo musuqmaasuqa ka jira maxaan ku dhahdaa xukuumadda waa xukuumadda keliya loo eriyey wasiiradii xisaabtamayay iyo qasnada dowladda lagu soo shubo maxaan ku dhahdaa lacagta taawa markii la xisaabiyey okay waxaan iska isnaadintii iyo gabagabadii barnaamijka laba wax ama laba nuqul ayaan jecelahay inaynu hoosta ka xidhano isla garno si ay waxaan ka hadlin u noqoto wax midho dhala ama dee wax laga fahmo ahmiyadaha ama wasbaladiga xisbiga wadani iyo xaqaa'iqa jira oo dadka ka sheegay waxaad taabatay cadaaladda iyo musuqmaasuqa waxaan kaa codsaday inaad bal ii sheegto faktuur waxa lagu dhaho afgajinda lacag cad oo soo baxday waxaad ii sheegtay dabeetna lacagtii ay lagu caawiyeen carabtu waxaan weynayaa xisbiga mucaaradka ah ee wadani inay jiraan xubno u qaabilsan dhaqaalaha oo islamarkaasi dee aan qof kasta kama hadli karo dhaqaale cadaalad wax kasta ay u saarayaan inay si ay uga soo baxaan wixii eedaymaa ama wixii magaraysa dhaleecooyina ama wixii la lunsado si ay maxaafadka ummadda ugu ilaaliyaan wuxuuda islamarkaana wakankan kalsoonida haddaad fahamtid in tiro guud carabtu ayna siisay lacagtii aad habowday saxaafadda kooda qorayd wax qarsoon ahayn laakiin nuqul sida loo kala xisaabiyey sida ay ku baxday iyo lacagta xajbiga uu wasiirka ka qaatay meedsayda isaga laga doonaya inuu maxaan ku dhahdaa xisaabiye xisaabtii ma laga hayaaba isweydiin le mise lagama hayaarto laakiin mucaaradkaa sheega hadiyo jeeraale inuu lacagta lunsaday isagana wuu weydiin doonaa haddii baa imshaan iska helo inuu noo xisaabiyo ama uu ku dhow inoo sheego soo weydiiya anagoo shaqadii weeyaan idinka saxaafad ahaana soo weydiiyo soo bandhiga annaga waxaan ka hadlaynaa waa cadsa galabta adiga ila jooga qiimayntii la sameeyey baan qiimayntii ina xaashim waan jecelahay inaadkii u joogaa waan jecelahay inaa su-aal weydiiyo adigoo xaqiiqdii haya hadda marka su-aal weydiiso aan meesha maxaan ku dhahdaa macno badan samaynayn intaasoo lacaga inuu helay wasiirku way cadda haddama garata haddii aad adigu maxaan ku dhahdaa soo saarto ama aad ina tusto dee intaa dee adduunku dee waa wada shaqeeya waa globalizing meel uu xisaabta ku soo bandhigay ama baarlamaan ha noqoto ama ha noqoto maxaan ku dhahaa xukuumaddiisa ama golo wasiirba ha noqotee haddii madaxtooyuhu soo sheegto maxaan ku dhahdaa markaas la xisaabinayo dahayaan mihii dhaqaaliyahan waxaa iga aqoon badnaan lahaa su-aasheeda baan kugu noqdo aniga iyo adiga waxaan leeyahay militida qoya ee dhaqaaliyahan waxaa inagu aqoon badnaan lahaa somaliland kale oo mucaarada oo wadani ku jira oo ina biixi ku yidhahda war lacagtii uu siiyey intaasay ahayd ee lagu dhiibay ina xashi maashiyada ku jira ina xashi ku yidhahda war lacagtaad qaadatay intaasay ahayd intaasaad
garoomada inoogu dhistay sheekay naga noqonaysa intaan waqaa haddaynu maya cabsa waxaa qodob weyn haddii isla fahmo yoyotan digama noqonaysa waxaa qodob weyn sheekay naga noqonaysa laakiin saa imika meel baan dhigay qodobka iyo dhegeysaw qodobkan meel baan dhigay anigu haddii wasiirka macdanta iyo biyaha iyo ka maxaan ku dhaha duulista iyo hawadu ay soo caddeeyaan wixii qarash soo galay waa la garanayaa waxa ay ku bixiyeen iyo waxa ay ka hayaan iyo xisaabteedii dee annagaa bay sheegay laakiin santa iyo su-aashaas si guur leegayso waan ku gudbaynaa maya anigu imika wixii qodobkaa meesha halkaas ahmay haddii aad leedahay wixii waa la soo bandhigay adigaan ogeyno halkaasay taalaa dee waa mid kale seen hore uga sii soconay saxaafadda soo weli bandhig saxaafadda weli soo bandhig ma haysa adigu ma aragtay weli meel saxaafadda ay qoranta haddaba raadi xaqiiqadeeda adigaa ka wariyaan adigan shacabada dadda xisbi maxaa caarada haysta markaana bidid haway hogaamiyeen dhaqankaa loo sii faahfaahayso laakiin hore ma soconayna xagga cadaaladda waxa weeye su-aashii ugu dambeysay xasan raxmaan iyo barnaamijkeeda gudoomiyaha xisbigan mucaaradka ah wadani cabdiraxmaan ceesho sidoo kale waxa weeyaan sidii hore u sheegay gudoomiyaha xisbinta ciraaq qalaxqaran hadii jiraan waxaa keligaa maaha mucaaradka dhanka kale iyo kulmiye mucaaradka waxay ku celceliyaan cadaaladda oo la horumariyana waxa ay ku tanaadiyahay islamarkaana ku horumaraya inuu hal qof laba boos waaweyn isku doono cadaaladda la soo caado wuxuu doonaya inuu ummaddeena hogaamiyo taasi waa cadaalad anaa kaaga jawaabaya taasi waa cadaaladdu markaa labada boos ku qabanaya cadaaladdu labada ku qabanaya kan doorasho ku yimi kan kalena doorasho ku tagaya haddii uu doorasho ku waayo labada midna hayn maayo waan gartay daawadayaal waxaa intaasi ku eeg barnaamij gaar ah oo aan waraysi kula yeeshay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani dalkani Faransiiska Cabdirasaaq Maxamed Cabdilaahi aad iyo aad buu Cabdirasaaq u mahadsan yahay tan iyo intaaynu barnaamijkan oo kala kulmi doono waxaan idin leenahay amaana Allah